مشرح سودو حاجة سودو أولاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد التحية وحمد مضن بوين سبحانه وتعالى dhammaanteen nagu kulmiyay halkan inagoo caafimaad qabna sidoo kale waxa mahad mudan maamulka macallimiinta martida sharafta leh bahda saxaafadda iyo dhammaan akhyaarta kulankan ka soo qayb gashay ardayda sinaha quruxda badan ugu soo eegaysa kulligiin waxaan idin leeyahay mahadsanidin mahad celin kadib waxaa caawa aad ugu faraxsanahay inaan halkan soo istaago taariikh iyo xasuus gooniyana ay ii tahay anigoo idinka dalbanaya codkiina cududiina iyo dhammaan taageeradiina akhyaaray aan ku bilaabay magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxaa Cabduqaadir waxaan ku magac dheerahay Cabdiraxmaan Gaacir asxaabta iyo tiimku dhammaan waxay igu wacaan Gaacir waxaan ku dhashay degmada Ayl taariikhdu markay ahayd 2000 waxaan ku soo barbaaray waxna ku soo bartay dugsi hoose dhexe ku soo qaatay deegaanka Caldoog ee degmada Dangarayo secondary-ga waxaan uga soo baxay Al-Hikma Secondary School akhyaaray waxaan rabaa maanta inaan halkan idinkula wadaago dhigaalkayga hogaaneed mudanayaal iyo marwooyin waxaan ahay hayin hogaamineed samaano badanna soo maamulayay bulshadiisa waxbarasho bahdiisa waxbarasho waxaan halkan idinku soo koobayaa muddadii mudnayd ee aan wax soo hogaamiyey inaan idinla wadaago baan caawa halkan u taagnahay waxaan rabaa iyadoo qodobaysan inaan idinla wadaago waxaan noqday gudoomiyihii ugu horeeyay ee ururka ardayda dugsiga sare ee Al-Hikma Garowe oo aan hogaaminayay muddo dhan 3 sano dugsiyeed waxaan sidoo kale noqday asaasihii iyo gudoomiyihii ugu horeeyay ee ururka midowga ardayda Puntland urur ay ku mideysnaayeen dhammaan secondaryasha iyo macaahidda magaalada Garowe waxaan muddadii aan jaamacadda joogay qayb ka ahaa shaqooyinka jaamacadda ka socda dhamaantood si gaar ah waxaan qayb lixaad leh ka ahaa gudbinta fariinta jaamacadda waxaan ahaa qareeme u adeega ardayda duruufaysan ee dhigata jaamacadda Boosaaso Garowe mudanayaal iyo marwooyin waxaan ahay hogaamiye helin toosan ku hagi kara bulshadiisa waxaan ahay hogaamiye aan tijaabo u baahnayn oo soo maray tijaabooyin adag kana soo gudbay waxaan ahay hogaamiye dabacsan oo dulqaad u leh duruuf kasta oo soo wajahda waxa jira qorshayaal aan ka leeyahay hogaanka ururka ardayda ama ajandayaal degan ilaa 6 ajanda gaarayaan ajandaha koowaad aan ku hormaro waa adeegida ardayda iyo baahiyahooda samaynta sanduuqa horumarinta ardayda kaas oo lagu ururinayo lacago lagu caawinayo ardayda duruufaha gaarka ah qabta fasal walba waxaan u samaynayaa wakiil gaar ah oo u qaabilsan kaliya
كورقبك ظروفها أرضي والبا وفصل كاس دكتا waxaan heegan u noqon doonaa ka jawaabista baahi walba oo ardayda dhexdeeda ah waxaan diyaarin doonaa guddi si degdeg ah uga jawaaba doonista ardayda adeegga labaad adeegga waxbarashada ardayga cusub oo dabcan aan u naqaano fresh ana lidkiisa u aqaan baarixi waxaan rabaa ardayga cusub waxaan u abuuri doonaa jawi xasiloon oo ay kula qabsadaan waxbarashada jaamacadda waxaan u sameyn doonaa muraajacooyin ay kula qabsadaan maadaama Ingiriis ay ku wada baxaan duruusta wada qaadana ardayda maraysa heerka dhexe waxaan ka caawin doonaa ama ka taageeri doonaa sida ay ku heli lahaayeen waxa loo yaqaano extra learning ama waxbarasho siyaada ardayda maraysa gabagabada waxaan kala shaqeyn doonaa sidii ay suuqa shaqada uga heli lahaayeen fursado sidii ay u heli lahaayeen investment ama maalgelin sidii waxa ay barteen ay ugu shaqeysan lahaayeen maadaama authority-ga ka union ahaan aan albaab walba ugu garaaci karo adeegga sportiga oo ah adeegga saddexaad oo aan u diyaariyay qabashada tartanka kubadda cagta ee u dhaxeeya qaybaha kala duwan ee kulliyadaha ka baxa jaamacadda Boosaaso Garowe labo qabashada ciyaaraha fudud sida tartanka orodka iyo hibooyinka dabcan aan u naqaano go talentiga iyo wixii la mid ah sameynta xulka kubadda cagta jaamacadda kaasoo ku matala kulana tartama jaamacadaha kale oo dhigeena ah fagaarayaasha ciyaaraha ama sportiga adeegga afraad adeegga horumarinta nidaamka wacyigelineed ee bulshada waxaan sameyn doonaa guddi dacwo oo bulshada ka wacyigeliya si fududna ugu baahiya ama ku bara diinta islaamka sidoo kale waxaan sameyn doonaa guddi caafimaad oo bulshada uga diga khataraha caafimaad ee deegaanka sidoo kale waxaan sameyn doonaa guddi wadaniyadeed oo bulshada ku wacyigeliya daljacaylka iyo dawlad dhiska dalka adeegga casriyeynta iyo horumarinta agabka ardayda dib u habeynta qolalka nasashada gabdhaha dabcan gabdho badan baa ila dhashay dib u habeynta qolalka nasashada gabdhaha labada kambasba inaan diyaarino oo ballan hagaajinta wadada isku xirta laamiga Sodonka ilaa jaamacadda caafimaadka iyo nalaynta islaad wadada isku xirta jidka Sodonka iyo jaamacadda maadaama ay ardayda dhigata habeenkii baylaha u yihiin burcad biriga ka qaraabata ama ugaarsata mobilka ama mobile hunterska adeegga horumarinta nidaamka siyaasiga ah ee ururka ardayda soo dhaweynta saaxiibada ila tartamay caawa garbahayga haddii aan u guuleysto dabcan kama guuleysanayo waa haddii aan u guuleysto inaan soo dhaweeyo xukuumadeedana ay qayb ka noqdaan taladeedana wax ku yeeshaan sameynta nidaam asxaabta badan oo lagu doorto hoggaanka ururka ardayda iyo dhammaan baarlamaanka ugu dambeyn mudanayaal iyo marwooyin jaalayaal iyo jawharadooyin anigoo idinku ixtiraamaya caqligiina iyo cilmigiina garashadiina iyo garaadkiina cududiina iyo ciidankiina waxaan si sharaf iyo karaamo ku dheehan tahay idinka codsanayaa inaad igu taageertaan codkiina iyo cududiina inaad igu aamintaan masiirka ururka ardayda jaamacadda Boosaaso Garowe iguna hiilisaan dharaarta loo madleeyahay sanduuqa codaynta haddii aad siisaan kalsoonida waxaan idin ballan qaadayaa inaan noqdo dadaal badane aan daalin
dulqaad badane aan daciifin mahadsanidin وأشكركم بحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته